wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ay kamid ahaayeen banduulaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba sidoo kale saraakiil kale ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Boorama waxayna kormeereen dhaydhayna ku tagaan iyo ay wehelinayaan maamulka gobolka ee kan degmada Boorama dhul maalmihii ugu dambeeyay khilaaf uu ka taagnaa isla markaana ay soo dhaydhayeen waxaana ugu dambeyntii halka warbaahinta kala hadlay banduulaha guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxayna tilmaameen kulli shaqooyinkiisa caadiga ah oo safar shaqanimo caadi ah waxaanu ahay wafti baanu ahayn aniga iyo taliyayaasha ciidamada qaranka ee kala duwan qaar ka mid ah laba jananaar iyo gaashaan la sare xubno ka tirsan farsamo yaqaano ka tirsan howlaha guud wasaaradda howlaha guud agaasimaheeda waaxda dhulka kulli waxaanu u nimid shaqo hawl shaqo waa maqalsan bariyahan ba shaqo yar ka jirjira meel dhul oo la isku haystay iyo farsamooyin caynkaas ah adoo xagga amniga wax quseeya oo kala duwan ayaan u nimi insha Allah taala kulli waan si joogdana maalmahan soo socdana marka wixii ka dibeyno wixii wareed dambe kala qaadan doonaa iyo xaaladahaas marka dambe kala qaadan doonaa imanka inta yar hore amaniisi sheegina hadii la ilaahdo marka sababtaas aanu hawshin insha Allah wali ma ina dhaxgelin laakiin waan gali doonaa hadii la imanka inta horse galay had baalka xunu marayna kulli waan ka wada socon doonaa hadii la ilaahdo hadalku wuxuu noogu dhan yahay wasiir ku-xigeenka dadku markay anaga naarkaan General Muuse oo ah taliyaha aaga bariga oo ku joogay hawl shaqo Hargeysa isna ila socda oo guddiga wafdiga kamida gaashaan la sare Cabdidheer hoggaanka gaadiid kamida kulli marka kamarada laga arko nimanka iyaga tootaysan waxa la oranayaa wasiirka iyo hawlaha guud agaasimiga dhulkuna uu nala socdaa xoog ma ahay waxaanu nimi shaqo arintii ciidanku ay ugu horeyso halkii airport ka sokaysay ay ugu horeysay dhulka ciidanku ay fadhiyeen oo ma sharci bay ku fadhiyeen mise way iska fadhiyeen ma dadkeele yaale madan guudba arinta oo la gali doono la guda gali doono ay ugu horeyso ciidan ahaan waxaanu ciidan ahaan isu soo raacnay inteeda soo mas'uul ciidan ahaan inaanu ciidanka xaqiisa hadaan xaq lahayn inaanu ka saarno hawlaha kale ee gobolka Abnina waanu nimi waa Shucayb Maxamed kan Shucayb Bigays telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.